Assalaamu calaykum. daawada weli ma isweydiisay maxaa sababay cudurradan ku soo badanaya geyiga Soomaalida gaar ahaan kansariska ku dhaca qaybaha kala duwan ee jirka. Haddaba qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa waa falkaha iyo saameyntiisa waa radiation-ke oo saameyn ba'an ku ah jirkeena. waxaa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah in sunta lagu shubo badaha Soomaaliya ay leedahay falkaha waa radiation oo ah qashinkii warshadaha adduunka kuwaasoo mar walba soo deynaya shucaacyo fallaadho falkaha ah oo aad u khatar badan. halista ay leedahayna waxaa ka mid ah in fallaadhahaas falkaha ah ay khalkhal ku ridayaan tarmidii unuga oo uu dabadeedna qofka ku sababaya xanuuno halis ah sida kansarka, sababtoo ah kansarku waa khalkhal ku dhaca unugyada habka ay u tarmayaan oo meeshii hal unug laga rabay ayaa 2 iyo 3 ka soo baxayaan. waxaana sabab u ah radiation-kan halista badan. waxaan sharax faahfaahsan ka bixin doonaa habka falkahan uu soo baxayo iyo sida uu saameynayo bulshada goobtaas ku nool iyo kuwa ku hareeraysanba. waxaa iyaduna xusid mudan in sababta dabshididan dambe ay u soo bateen xanuunadan aan la aqoon ay sabab u tahay sunta badaha ka soo kaahaysa ee kalluunka saamaysay bulshadiina ay kalluunka quudanayso ama ay cunayso iyadoo aan ka warhayn. aynu marka hore isla ogaano falkaha iyo waxa uu yahay. falkaha waxaa lagu qeexaa ama loo yaqaan soo deynta qurub hoosaadyada ama fallaadho kuwaasoo ka soo baxaya bu'da uu qurub leeyahay. falkaha soo baxaya wuxuu noqon karaa laba mid dabiici ah oo loo yaqaano natural radioactivity ama mid gacan ku samaysa ah oo loo yaqaano artificial radioactivity. noocyada falkahayada waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo kala ah alpha, beta iyo gamma. falkahayadan mid kasta waxay leedahay astaamo u gaar ah oo lagu ogaado laguna yaqaano. haddii aynu ka koowaad soo qaadano oo alfa ah waxaa lagu magacaabaa waa qurub danabsidkiisu togan yahay kaasoo laga soo daayo curiyo falkaah leh, waxaana laga soo daayaa curiyaha helium. waxa uu ku socdaa xawaare 10% ka ah xawaaraha ilayska. marka la barbardhigo waxa uu leeyahay awood aad u sarreysa oo ka danabaysan karo molekuliyada hawada. waxaa la yiraahdaa awoodda uu shayga ka dhex bixi karo way yar tahay qiyaas ahaan waa 2 sentimitir hawada dhexdeeda, waxaana joojin kara maqaarka noolaha ama warqad. waxaa lagu dareemaa ama lagu ogaan karaa filimka la geliyo kamaradihii hore ama qalab loo yaqaano cloud chamber. waxaa xusid mudan in curiyahan loo yaqaano uraniumta laga sameeyo nukliyeerka adduunka ee badaheena qashin ahaan loogu duugay. falkaha labaad oo beta ahaa waxaa lagu qeexaa waa elektrood darabkiisu taban yahay kaasoo ka soo baxa bu'da curiye falkaa leh. waxa uu ku socdaa xawaare 90% ka ah xawaaraha ilayska. marka la barbardhigo awoodda uu shay ku danabaysan karaana waa ay hooseysaa. marka la barbardhigo falkaha alfa waxay leeyihiin awood ay shay kaga dhex bixi karaan, waxaana joojin kara 2 sentimitir oo ah curiyaha almuniyada. isna sidoo kale waxaa lagu dareemi karaa ama lagu ogaan karaa qalabka loo yaqaano Geiger Müller iyo cloud chamberkii isna lagu aqoonsanayay alfa. falkaha saddexaad waa gamma. waxaa lagu qeexaa falkaal ah electromagnetic oo aad u sarreeya oo laga soo daayo bu'da uu leeyahay qurub. wax danab ah ma leh, waxayna ku socotaa ama ku socdo xawaaraha ilayska, waxaana ay leedahay awood danabaysan oo hooseysa iyo awood ay shay ka dhex bixi karto aad u sarreysa. waxaana lagu yarayn karaa awoodaha 2 sentimitir oo birta lead ah. badanaa soo deynta falkaha gamma waxay dhacdaa kadib soo deynta falkaha alfa iyo beta. qalabada lagu ogaado ama lagu dareemana waa ay ka siman yihiin labadii hore. haddii aynu soo sharaxnay falkaha iyo qaybihiisa waxay ku kala duwan yihiin oo aad u soo fahantay, imka waxaynu u gudbi doonaa waxa la yiraahdo burburka falkaha waa radioactive decay oo ay muhiim tahay inaad si fiican u dhugato sababtoo ah waa bartan halkaad ka fahmi lahayd falkaha ay sameynayso sunta badaha Soomaaliya ku jirta iyo siday u dhaqmayso. burburka falkahu waa habka ay bu'da qurubka u burburayso kadibna ay u soo deynayso fallaadho. burburka falkaalka waxaa loogu yeedhaa spontaneous oo micnaheedu yahay ma saameeyaan qodobada deegaanku sida heerkulka, cadaadiska iyo faldadejiyaha. arrintan waxaa looga jeedaa qodobadani ma badin karaan mana yarayn karaan burburka falkaha ee wuu ka madax bannaan yahay. waxaa sidoo kale jira wax la yiraahdo activity oo ah inta tiro ee bu ah taasoo burburaysa second kasta, waxayna leedahay halbeeg lagu cabiro oo la yiraahdo becquerel. intaas kadib haddaynu u gudubno noocyada burburka falkaha taas oo aynu u qaybin doono 3 oo kala ah sidii horeba aan u kala qaybsanay: burburka alfa, burburka beta iyo burburka gamma.
mid kastana aynu dul istaagi doono. Haddaba burburka alfa marka la joogo sida aynu ognahay curiyuhu waxa uu leeyahay laba shay oo ah atomic number iyo mass number. ka hore waa atomic numberke waxa uu qeexaa inta proton ee curiyahaasi uu leeyahay, kan dambana waxa uu qeexaa inta culays ee curiyahaasi uu leeyahay. haddaba burburka alfa atomic numberka waxaa ka go'a 2 proton waxaana mass numberkiisa ka go'a 4 neutron iyo proton, maadaama uu mass numberkiisu ka kooban yahay proton iyo neutron. burburka beta isagu waa uu ka duwan yahay kan hore. burburka beta waxaa la soo daayaa marka uu hal neutron u kala jabo proton iyo electron, kadibna electronku wuxuu uga baxaa dibadda qurubka. haddaba burburka beta atomic numberka waxaa u darsama hal, mass numberkiisuna sidiisa ayuu ahaadaa, waxbana kama go'aan. burburka gamma haddii aynu eegno labadii aynu soo sheegnay isna sidoo kale waa uu ka duwan yahay. curiyuhu wuxuu fallaadhaha gamma u soo daayaa si uu isaga yareeyo tamarta dheeraadka ku ah. marka la soo daayo gamma atomic numberkiisa sidiisa ayuu ahaanayaa, mass numberkiisuna sidiisa ayuu ahaanayaa, laakiin fallaadhaha gamma waxay sidaan tamar. sidaas daraaddeed tamartaas uu sido gamma waa nooc halis ku ah dadka iyo deegaankaba. waxa ay fallaadhahaasi dalooliyaan lakabyada gibilka sare ee hawada, taasoo fallaadhaha cadceeddu ay toos u soo galayaan deegaanka, waxaana fallaadhaha cadceedda oo toos ugu dhaca maqaarka aadamaha ay ku sababtaa jaadad ka mid ah xanuunka kansarka maqaarka. haddaba marka uu curiye burbur falkaa ku dhaco oo atomic numberka ka go'o 2 proton, mass numberkana uu ka go'o 4 proton iyo neutron, qurubyadaas laga soo daayay bu'da qurubka waa atome, waa kuwa sababay falkaha radiationka kadibna ku baahaya deegaanka oo cudurrada sababaya sida kansarka oo kow ka ah iyo khalkhalka ku dhaca chromosomeska waa hidde-sidayaasha kuduudiyaha, cudurrada maqaarka, xanuunada khalkhalka habdhiska aadamaha waa congenital abnormalities ay ka mid yihiin isku daroolka wadnaha, waxaana xanuunadaasi ay ku badan yihiin carruurta, gaar ahaan ilmaha uurku jirka ah, maadaama uu isagu ku jiro xaaladii abuuritaanka. waana ta keentay in carruur badan oo Soomaaliya ku dhalatay dabshadiidan dambe ama sanadadan dambe ay noqdaan kuwa ay xubnahoodu dhammaystirnayn oo ay dhashaan iyagoo xubnihii laga saxaroonaya ama laga kaadinaya aan lahayn, iyagoo wadnuhu uu daloolo, iyo kuwo kaloo fara badan. waxaana xusid mudan badanaa dadkii sagaashamaadkii dhashay iyo horaantii qarniga 21aad waa ay ka madax bannaan yihiin xanuunadan congenital abnormalitiska ama wuuba ku yar yahay, taasoo ay sabab tahay waagaas oo suntu cusbayd saamayn badanna aysan lahayn. haddase waxaa laga joogaa ku dhowaad 30 sano. haddii dadka waaweyn ay ka badbaadeen xanuunadii khalkhalka ee uurka ku jirta, waxay halis ugu jiraan kuwa deegaanka ee si nabad looga baxsan karin. muuqaalka noocan ee carruurta Soomaaliya ku dhalanaysa dabshada dambe waa muuqaal runtii argagax iyo ama kaag wata, waxaana sababay suntii deegaanka ku soo kaahaysa ama falkaa soo daynaysa, taasoo maqaarka noocan ka dhigaysa. waxaa kale oo jirta sida dhakhaatiir Muqdisho joogta ay caddeeyeen oo muuqaalo laga soo duubay in carruurta qaar ay ku dhalanayaan iyagoo aan lahayn xubnihii laga saxaroonayay ama laga kaadinayay. arrintanina sida aan horey u soo sheegnay waxaa isbeddel ku dhacay waa hidde-sidayaasha, waxaana isku dayi doonaa inaan dul istaagno isbeddelkan ku dhacaya hidde-sidayaasha. sidoo kale waxaa jira in noolahan oo dhan uu leeyahay hidde-side u gaar ah kaasoo isugu gudbiya fac ka fac, oo ma jiro in insaanku uu dhalo xayawaan ama dhir ee waa in uu dhalaa wax isaga u eg. taasna waxaa sababay hidde-sidayaasha oo iyagu isaga gudbaya fac ka fac. haddaba ilmuhu waa aadamahee marka uu samaysmayo waxa uu aabbaha ka helaa 23 hidde-side halka uu hooyadana ka helo 23 hidde-side oo marka la isku daro noqonaysa 46 hidde-side. marka lagu guda jiro isku daranka hidde-sidayaasha ayaa waxaa dhici karta iyadoo kolba la eegayo xaaladda ku hareeraysan deegaanka inuu isbeddel ku dhaco hidde-sidayaasha. arrintan waxaa la dhahdaa marka aqoonta hidde-sidayaasha la baranayo chromosome mutation. qaybaha si guud loogu qaybiyo isbeddelkan waxa weeye waa germ cell mutation iyo somatic cell mutation. kan hore ee germ cell mutation-ka waxa weeye isbeddel isaga gudbaya fac ka fac oo la kala dhaxayo. noocan waxaa ka mid noqon kara kansarka dhalan beddelka, halka ka dambe ee somatic cell mutation-ka uu yahay isbeddel ku dhacaya inta uu jiro qofku, waana mid deegaanka iyo isbeddelkiisa cimiladu ay ka qayb qaataan. waxaana tusaale ahaan u ah maqaarka qolofta leh, mushkiladaha dhanka maskaxda ah, kansarka noocyadiisa kala duwan. haddaba markaaynu mutation-ka joogno waxaa si gaar ah loogu sii qaybiyaa waxa la yiraahdo point mutation. waxa weeye isbeddelka kimikeed ee ku dhaca 1 iyo 2 nucleotide. qaybta kale waxaa la yiraahdaa chromosomal mutation, kaasoo ah isbeddel ku dhaca qaab dhismeedka hidde-sidaha iyo isbeddelka ku dhaca tirada hidde-side. haddaba waxaan hadda faahfaahin doonaa meesha ka khusaysa mawduuceena sunta.